gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo waraysi khaas ah siinayay telefishinka Star ayaa ka hadlay weerar lagu soo qaaday hoyga uu ka degan yahay xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood weeraray bal arintaas u dhacay. bismillaahir rahmaanir rahiim xalay geerkii dambe markay saacadu ahayd labadii xoogaa ayaa niman luga oo hubeysan qori beekaamiyo iyo baasuukiyaal guriga weerareen marka adigu dhowr baasuukay ku rideen iyo bambafaal iyo rasaas qoriga beekaamka marka ilaa markii gurigii waxa gaadhay kaliya dhinaca fadhiga guriga fadhigiisii waa jingadii iyo ay gidaarkii rasaas badan ku dhacday gaariga talixiyay qaybta booliska oo guriga hor taagnaana isna rasaas ba ku dhacday runtii kaasina rasaas badan ba ku dhacday dhibaato kale ma jirto meesha ciidan baa ilaalinay guriga difaaca kuwii waa difaac iska cabiyay marka nimankii dabeedna ka baxeen yaagi fiicnaadu ma ku sugnay anu xalay fi qaran nabadgelyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland fidmadayaasha aan ogoleyn horumarka gobolka socda runtii gobolku maanta marxaladii amnigu ka gudbay marxalad horumar ayuu talaabsaday dalka deegaankuna boqolkiiba maanta aan oran karo 80 waxay diyaar u yihiin inay Soomaaliland maanta la janqaadaan oo ay kala qayb qaataan horumarka ka socda doorashooyinka ay kala qayb qaataan bay maanta dadka deegaanku dhamaantood diyaar u yihiin dad doonay inay ka carqaladayaan dadka horumarka ay doonayaan higsanayaan baa waxaan wada laakiin waxayna yeelayaan anaga maaha wax ka bedelay qorshahayagii oo dib noogu celinay inaan amni ka shaqeynaa maaha horumarkii baan ka shaqeynaa waxna uma aragno runtii waxaan soo turturay dhinaca kale gudoomiyuhu waxa uu fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Sool waxa weeye inay soo gaadaan oo aanay aqbalin marnaba cid nabadgelyada dib u celisay oo aanay aqbalin marnaba horumarka socda cid hor istaagtay inaan aqbalin annaguna haddaan dawladda nahay gacan xoog loo biraan ku qabanaynaa aqbali mayno in nabadgelyada la handado taas waxaan u arkaynaa in la handaday nabadgelyada gobolka Batri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.